Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba Ramadaan Kariim. Ilaahay Ramadaanta naga aqbalo khayrkeedana hayna siiyo. Fideogan caawan soo dhigaynaa wuxuu daaran yahay horta inkastoo inay fiicnayn dee laba qof oo isqaba inaynu ka sheekayno hadday isfureen iyo hadday wada joogaanba inkasta inaynoo fiicnayn haddana waxaa jira hadal maalmahanba social media dhex yaacayay oo laga hadlayay labadii qof ee isqabay waa Farxaan Yare iyo gabadhii uu qabay Rasmireys. runtii horta dee maxay ahayday markay laba qof isguursadaan kala togooda waxay ku kala tegeen horta iyagoo keliya unbaa iyo intii dhex joogtay. marka horta maadaama inaan inaku dhex joogin markhaatina inaanu ahayn horta inaynu wax ka sheegnaa waa khalad ama inaynu u kala safarno inuu labada dhinac kala raacnaa waa khalad. marka waxaan arkay iyadoo dhinaca gabadha loo badan yahay horta gabadha dee walaalo waynu ognaho dee social media wuxuu dhex socday oo waxay ahayd dad iska public ay ahaayeen oo si public u dhaqmayeen oo dee waxaa jiray YouTube-ka ay caan ku ahaayeen maadaama gabadhu YouTuber ahayd iyadu. waynu ognahay qisadooduna siday ku bilaabato iyadaa Nairobi ugu yeedhay marka la isguursadana dee isagu muu shaqaynayna isagoo iyada halkaa ugu yeedhato u tagtay gurigana dee waxa kaba un kolba qofka breed makerka waxaanay gaaladu yidhaahdaan ama qofkan dee isagu shaqaynaya markaa unba gurigana kaba hadday hadiyad siinayso iyo haddii kaleba dee hadduu isba hayo uu shaqo hayo markaasi isba uu keeni lahaa intay siisay in ka badanna uu siin lahaa. waayahay waa la kala tegey markii ay kala tegeen dee waa macasalaama unba ahayd in halkaa sheekada lagu joojiyo laakiin in sheekadii dib loo sii qaado oo maanta ka yaraa dee sumcad xumo iyo fadeexad la dhex dhigaa aad bay ceeb u tahay. teeda kale waxaan kasoo horjeedaa gabadhan uu Farxaan qabay ee iyadu soo dhigaysa waxaasaan ku siinayay iyo waxaasaan siinayay waxaas waa wax lagu hadlo maaha dee ninkaagana ninka ku qabana waa siin kartaa laakiin maaha dee waxaasi waxaad leedahay ku jeclow waayo jacaylka laguma kasban karo laptop aad siiso iyo saacad aad siiso iyo hadiyad aad siiso dee jacayl laguma kasban karo laakiin jacaylka waxaad ku kasban kartaa qalbi wanaagsan iyo niyad saafiya iyo daacadnimo iyo dee jacaylkaagood u noqoto si kalsooni aad u haysato. marka waxaan u sheegayaa dadkan youtuberada dee iyagu lacag waxaa ka dhex raadinayna war waxaas wax lacag laga dhex raadsado dee qof bini'aadana sharaftiisa iyo karaamadiisa hoos loogu dhigo lacagta aad ka helaysaa lacag wanaagsan maaha. marka waxaan leeyahay iyakana niyo bal qabrigiina iyo aakhira la tegayahay bal iyo aakhira dib ugu noqda. marka waxaan leeyahay Farxaan Yarena isna mid baa odhanaya dee niyo labada qof way kala roonaadaan mar hadday iyadu khaldantay dee social media maanta kaga aarsay istiri waxaa kuu qurux badnayd inaad iska aamusto maadaama iyadu maanta dee iyadu ay waxay kugu iisoo sheegay haysato waxay maxayda kugu rikaataysato dee caddayn ay soo dhiganayso waxaasaan siiyey iyo waxaasaan siiyey iyo waxaasaan siiyey ay odhanayso inaad adigu ka aamusto ayuunbaa kuu qurux badnayd. marka waxaan leeyahay niyo